إلهي ما كاي غرابة إلهي ما كاي غرابة قوت كان إلهي قدوم إلهي كان فردوس الله كعسوم 25,000 oo dollar oo madaxweynuhu noo soo dhiibay haddaanu nahay dawladda dhexe tana waa 5,000 oo dollar oo uu bixiyay taliyaha guud ee debdemiska Axmed Sawaaxili halkaas waxa ku yaala halka waxa kuugu jiro gacanta aad ku haysaa waxa weeye 30,000 oo dollar 10,000 oo dollar maayirka dhiibaya intii dawladda hoose jirto ilmaha yar dawladda hoose maartay xil qaadaysa oo korinaysa oo biilkeedana siinaysa insha Allah waxbarashadeedana ka caawinaysa biidmilaahi tacaala ilaahay idinka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa 40,000 oo dollar waxay ku wareejisay qoysaska ku shufbeelay guri ay ka deganaayeen magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda 150ka dabkaasi ayaa waxa ku geeriyooday 5 ruux waxaana xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland qadarka lacageed ugu tala gashay in laga qayb qaato gurmadka iyo sidoo kale aaska loo fidinayo shantaasi marxuum ee ku nafwaayay dabkaasi ka kacay guriga ay ka deganaayeen magaalada Hargeysa waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Ameerka عاصمة هرقيسة تليها عيدن كدمدمس كالسوماليلاند iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda dawladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka iyo suxufi Maxamed Ilig iyo sidoo kale Sultan Xasan Sultan Cabdilaahi iyo dhamaantood tacsi u diray ehelkii ay ka baxeen 5 ruux oo markaasi ahaa qoys degana xaafadda 150ka waxaana qadarkaasi lacageed ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyagoo markaasi sheegay xukuumad ahaan in ay kaga qayb qaadanayaan sidii wax loogu qaban lahaa qoyskaasi ku shufbeelay gurigii ay deganaayeen iyagoo oo markaasi ka tacsiyeeyay ehelka iyo qaraabada ay shantaasi marxuum ka baxeen halka kan geerin xadilaa ka dhacday 3 caruur oo walaala hooyadood iyo habaryartood baa halka kan dab ku habsaday subaxii hore saaka waa geerin naxdin leh la dareen baanu nahay bulshada reer Soomaaliland oo dhan guud ahaan waanu ka tacsiyadeynaa gaar ahaan gobolka Maroodijeex gaar ahaan qoyskii ay 5 qof ee ay ka baxeen waanu tacsiyadeynaa waxaanu leenahay ilaahay samir iyo iimaan hooyada ayayda kalideed maanta halka taagan baynu tacsida u diraynaa qaraabadeedii iyo ehelkeedii baynu u diraynaa walaaladeedii iyo ilmaadeeradeedu ag joogeen u diraynaa inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyagana inta dumaree waaweyn naxariistii janno ilaahay uu ka waraabiyo 25,000 oo dollar oo madaxweynuhu noo soo dhiibay haddaanu nahay dawladda dhexe tana waa 5,000 oo dollar oo uu bixiyay taliyaha guud ee debdemiska Axmed Sawaaxili halkaas waxa ku yaala halka waxa kuugu jiro gacanta aad ku haysaa waxa weeye 30,000 oo dollar 10,000 oo dollar maayirka dhiibaya waxaanu tacsiib ballaaran ugu sidnaa geerida ka dhacday anoo ku hadlaya afkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tacsidiisii waxa mid sida qoyska iyo qaraabada iyo ehelka iyo qoysaska maanta xalay masiibada ku dhacday waxaan leenahay Allah weyna raajicuun Allahu naxariisto sidoo barasaabku sheegay tiiraayo iyo tacsiibaan la wadaagaynaa dadka waxaanu si gaar ah ugu sii tacsiideynaa qoyska iyo qaraabada iyo hooyada maanta halka ubadkeedii ilaahay ka qaaday qalbiga hawga reebaan leenahay maanta hadal islaam ma harin waxa nagu wada dhacay geeri inaga wada dhaxaysa marka qaraabadii iyo ehelkii iyo wadanka oo dhanba tacsiibaan wada dirina annagu 2 jeer ba tacsiidu aanu dirina mar waa tacsiidaan hooyada u dirinay iyo caruurteedii iyo mar inaan ka mid ah ciidamadeeda oo fireman oo boorme ka shaqeeyo imkan la joogo xamse oo walaalkeeda labada tacsiid aanu dirina ilaahay samir iyo iimaan naga wada siiyo ilaahum baa qiyaas karaya dareenkayga sidoo noqday waxaanu ku bixinay wax kasto suuragal ah in nafaha la badbaadiyo laakiin ilaahay ma qadarin waxaynu qaban karaynina ma ahayn was qadarka ka weyn wax bini aadamku qaban karayo waxa anaga noo dheer oo inta raacinayna ilmaha yare haray waxay ka mid noqonaysaa dadka dawladda hoose sida bilaha ah ay u siiso
waxa ay ku noolaanayaan marka nolosheeda oo dhan intay nooshahay ay weynaanayso ay wax baranayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala nolol wanaagsan man ilaahay weydiinaya helaysa taa way dowladda hoose ku jiraysaa liiskeeda bishu markay dhammaatana waxeeda yar qofka mas'uulka ku ayeedeeda ayaa loogu dhiibayaa marka dowladda hoose amoontka ay bixinaysaa ilmaha yar inay nolosheeda oo dhan biilkeeda joogtaan way bixinaysaa waxbarashadeeda way kifaalo qaadaysaa ilaahay idinkii intay nooshahay ay murwo noqonayso ay qof weyn iyadu ismaamusho oo nolosheeda maamulato noqonaysa saasay noqonaysaa waana go'aan dowlad hoose maaha aniga iyo anu bari haddaan taga xitaa ka dambana saasuu mas-uuliyadda u sii qaadayaa anugu waxaan qaaday kuwii walaalkii cabdiraxmaan oo inala jooga uu qaaday baan haynaa kuwa jicir qaaday buu isna hayey markaa saasaa ammaanada loola kala wareegaya markaa waa ballanqaad abada weeye intay dowladda hoose jirto ilmaha yar dowladda hoosaa maaragtay xil qaadaysa oo korinaysa oo biilkeedana siinaysa insha allah waxbarashadeedana ka caawinaysa biidni illaahi tacaala dee marka dhibaata dhacdo si la isku garab istaago ayuunbaa muhiima dowladda hoose iyo xukuumadda dhexe iyo hay-adda debdemiska dee waan u mahadnaqaynaa mahadnaqaasina waxa weeyaan duruuftii saaka xaafadda ka dhacday dee qof walbaaba uu dareemayo wuu ogaa birtaa laydhka halka u sarraysa ayuu dabkaas ku dhowaaday markii sidaa uu kacayba waayo guriga waxaa dhex yaalay daqiiq saliid maryihii yaryaraayee guryaha lagu xidhxidho markaa ololku mar walba waxay ka samaysiiyeen waa gaas markaa kor buu kacay markiiba dee culays badan baa gurigii ka dhacay marka hooye xabiiba waxaan u warwareyn waxa weyaan ciyaalka yarare xaafadoo dhan waxay ka iibsan jireen baagiyaha xusuus gaaray leeday marka baagiyi yaraayee masaajidka hortiisa iyo madrasadda inaga soo horjeeda iyo dugsiga yar ee naga dambeeya iyo iskuulka nuuraddiin wixii ciyaaloo dhan ee ka iibsanayey ayaa xusuus gaara ku leeyihiin hooyooyinka dhintay bismillaahi raxmaan raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geeridu waa xaq laakiin si arrintan arrin masiibo ah ayaabay ahayd oo qadarkii ilaahay ah marka iimaan baynu leenahay waa ku sabraynaa waa xaqii ilaahay baa ka adeegay meesha aniga kelmaddaydu waa kelmad mahadnaqa tacsiya hambalya ducaah iyo guddoon ah marka insha allahu marka ugu horreysa waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan yacnii noo soo diray xukuumadda uu hogaaminayo wasiir xamarshi iyo barasaabku meeyarka caasimadda iyo golaha deegaanka halkan jooga taliyaha debdemiska waa u mahadnaqaynaa sida naxariista leh ee ay dadkooda ugu soo gulmadeen ee tacsida halkan noogu soo gaadhsiiyeen ilaahay waxaynu uga baryaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehliyaddii iyo dhammaanteenba inuu ilaahay sabir iyo masaadiqa inaga siiyo ilaahay iimaanka ha iga reebo ilaahay iimaanka ha iga reebo ubadkana ilaahay iga guddoomo ilaahaya janno fardowsa allah ku casumo anigana ilaahay iimaanka ha iga reebo kuwan hayaan allah i barakeeyo afarta qof ee ii hadhay allah i barakeeyo saddexna afarna dhalay inanti ka hadhay allah i barakeeyo